gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Ismaaciil ayaa maanta tababar u furay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Aadan Isaaq ee magaalada Boorama. Tababarkani oo ah mid socon doona muddo 3 cisho isla markaana kor loogu qaadi doono tayada iyo habgudbinta casharrada ee macallimiinta ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka dugsiga sare ee Aadan Isaaq ee magaalada Boorama. waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Aadan Isaaq ee magaalada Boorama mudane xasan maxamed heebaan waxaanu ka sheekeeyay dardarta ku socdo dugsigu kulli maanta oo ay tahay 28kii bishii koowaad 2020 waxaynu u wada joognaa inaynu bilaabano workshop inoo socon doona insha Allah 3 maalmood oo sida ciwaanka halka ka muuqata ujeedadu tahay in macalinka la xoojiyo oo empowerment aynu u sameeyno macalinkeeni kulli sanadkan sanad dugsiyeedkan aynu ku guda jirno laba barnaamij oo xoogan baynu ujeedadeenu hay inaynu aad uga shaqeyno number 1 inaynu tayada waxbarashada wax badan kor u qaadno number 2 na iskuulkeena bilicdiisa iyo mar walba horumarkiisa kale inaan sidoo kale aynu kor u qaadno oo aynu ka dhigno goob ku haboon goob uu arday wax ku barto kani waa mid kamid ah hadaba waxyaabaha aynu kor ugu qaadanay tayada waxbarashada waayo macalinka oo la tayeeyo macalinka oo la xoojiya waxay keenaysaa in tayadii waxbarashadu ay kor u kacdo waynu ognahay macalinku waa wadnaha waxbarashada macalinku hadduu tayoobana wax badan baa waxbarashada isbedelaya kulli way jiraan waxyaabo kale oo iyaguna de saameyn ku leeyahay laakiin macalinku waxaan isleeyahay waa factorka ugu horeeya iyadoo waliba aynu de maanta iskuul ahaan inagu isxilqaanay oo aynu ugu talagalnay de hadaynu mar walba hay'ad iyo de dibad wax ka sugno awoodda dawladdeena aan garanaa dawladda taageero soo koraysa ay tahay de wax badan inaga socon maayaan waxaan ugu talagalnay inagoo dhexdeena isxilqaamana inaynu aqoon isweydaarsi yeelano aynu u yeelano aqoon-yahano aynu inaga baxsano aynu maxay iyaga soo kala lectures ka dhageysano kor u kac fiican insha Allah inoo sameeysan rajeynaa soo noqodkeenin insha Allah sanad dugsiyeedka aynu taariikhda labaad u bilaabanana faafac cusub iyo dardar cusub aynu la galnay insha Allah iskuulkii ay kulli ujeedo tahay geesiisa isaguna halkaas waxa ka hadlay macalinka bixin doona tababarkani Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aare waxaanu halkaas ka sheegay kulli iskuulkan Aadan Isaaq intan dambe wala hadal hayaayo dadku waxa xun iyo waxa wanaagsan way ka hadlaan marka dadku wax sheegaya runtii marka wanaag badan iyo magaranaysa ka dhax muuqasho bulshadii iyo waxbarashadii tacliintii gobolka aad uga dhax muuqataan baa runtii hadal hayntiinu ay tahay waan idinku bogaadinayaa aniga lafteedu bahda waxbarashada ah waxbarasho ku soo dhex jiray almost malaha 20kii sano imika u dambeeyay hase ahaatee aanan waqti ku faani karayn oo macallimiintaydina rag ay halkan joogaan runtii oo waqti badan oo aan ku faanaanay jirin laakiin waxbarashada iyo heerka meesha uu kaga jiray kaalinta iskuulku kaga jiraa mid aad u haboon oo aad u cudoon oo runtii la mahadiye weeyay ugu dambeyntii gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Ismaaciil ayaa halkaas ka hadlay waxaana uu sheegay waxa mahad iska Allah ilaahay mar koobaad iyo marka labaad uga mahadnaqaynaa inay kulansiinayno isugu nimaadno qorshahan maanta ah inaynu bal dib isku xasuusino oo ah tababarkan ku saabsan sidii marka awoodda macalinka kor loogu qaadi lahaa ama xagga wax dhigista aato ama haato marka xagga cashir diyaarinta xagga hadhow markuu cashirkii ama manhajkii u dhameystiro oo ardayga marka uu qiimeyn lahaa iyo sidoo galaaska gudaheega ardayga ay u macaamil lahaayeen waxaynu ognahay in ardayda waxaan u dhigaynaa ay kala duwan yihiin xagga ama maskaxaanta ama ay ku jiraan caruur marka baahi gaar ah marka qabta oo galaaska gudaheega wax laga yaabaa inay dhibaato badan ku gaarsiiyaan bal qaabkaynu galaaska uu macallinku maamul lahaa laftigeega ay ku jirto dhamaanteed waxa weeyaan oo wixii aad isticmaal lahaydeen ilaahay baan uga mahad celinaynaa inaan maanta halkaas ku xasuusino insha Allah waxaan aad uga mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiintiina oo kulli hawshan ama tababarkan ahayd qorshe idinka markaa idinka yimiday oo mar hore maamuluhu aan isku ogeyn waqtiga fasaxa in hawsha qabsan doona idinkana waxay tahay xasuusin kulli waxa laga yaabaa aqoontuna waxa kolba marka inta aad practice garayso
ama aad gacanta ku hayso wax badan oo halka la isla arki doonaa aad si fiican aad u garanaysid laakiin aanad sometimes aanad isticmaalayn laakiin aad dareemayso inay wax badan ay faa'iideynayaan wax rajaynayaa waxa ugu qaalsan waxaynu gacanta ku haynaa waa ubadka sheekhu markuu quraanka inoo furiyay aayadii ugu horeysay nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejiyay ahayd oo waxay ku tusaysaa waxaynu mar walba la dagaalnaa xaween inuu qofku waxna akhriyo waxna qoro marka aayadii horta iqra naam akhri baahad saguna da ummiya inaga waxa loo keenay caruur marka xaashicada ha ka bilaabaan dugsiga hoose oo u baahan kolba wixii lagu qoro ama aqoonta la geliyo umay kula soo noqon doonaan bulshada inaga markaa inooga baahan tahay inaan aqoon wanaagsan akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan suubanba markaa aan ku tababarno waxaynu halkan ka siino ayuu bulshada insha Allah la dhaxgalayaa marka waxaynu dhamaanteen waa inaynu diyaar garoonaa saynu kor ugu qaadlayno tayadii waxbarashada ka wasaaradahan waxa sanadkan 2020 la qorsheeyay in qorshaha sanadkan wasaaradda waxbarashada ay ku shaqaynayso la dejiyo iyadoo loo daadajinayo heer degmo ilaa iyo muxuu ahaa heer dugsi waxaan rajaynayaa dhawaan keeni doonaa qorshaha sanadkan loogu talagalay dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashadu maxay ka maagan tahay halkee baa la rabaa inay gaadhaan inaan iyadana inii keeno dabeetana wixii qorshahaasi oo noqdo kii aynu ku shaqayn lahayn muddada sanadka ee 2020 waxayna wasaaradda waxbarashadu mar walba deegaanka baahidii dugsiyada fidintoodu way soo yaraatay waxa laga yaabaa meelaha looga baahan yahay percentage in iskuul laga dhisay aad bay u kooban tahay laakiin waxa u baahan waxaan haysanay ardayda aynu hayno dugsiyada inoo furan saynu u tayeyn lahayn ubadka markaa ka soo baxaya gaar ahaan gobolkeena ee gobolka aqoonta haddaan inta ku joojino oo dadaal iyo juhdi sameyn weyno cid badan oo dadaalaysa inay soo gaari marka waxaan inagula dardaarmi lahaa kulay halkan waxa lagu barnayaa xaween waa habki waa sidii macalinka loo xoojin lahaa gaar ahaan mid waxa jirta marka kormeerku u dabagalka sameeyo ugu badan oo la soo gudbiyo waa habka cashir diyaarinta way fududahay qaabka loo diyaarinayo laakiin macalinku ka uskeer uu hawl yaraysanaya waxa dhan lahayn inaynu isticmaalnaa laysan balaan ku qiimo u sameynaysaa ku fududeynaya marka ardayga qiimeynayso ama measurement and evaluation hadhow imtixaanka markaynu ka qaadayno haddii waxaagu marka horeba ku diyaarsanaa waxaad ardayga u qiimeyn kartaa sida ugu fudud sababta waxaad ogtahay ardaygan ujeedadii aad ka lahayd casharkan inuu ka barto markaas aad wax weydiin karaysaa haddaynu samaysan lesson plan ama casharka aynu soo diyaarsan waxaad kaanaysa qiimeyntii ardayga dhow aynu ku sameyn lahayn waxa laga yaabaa macalinku inuu hal chapter ku dul kufo oo inta badan arday xariifa aad ka weydo grade kii fiicnaa waxa weeyaan sometimes waxa noqonaysa qaabka imtixaanka loo soo diyaariyay inayna ahayn habkii isagu markaa ama dhinacuun awoodda la saaray ama hal chapter la saaray oo ardayga laguma qiimeyn karo soo galaaska dhexdiisa ardayga ugu fiicnaaha hadduu imtixaanka ka dhaco wana dib isku weydiisa talab marno ma qaabkan imtixaanka soo diyaarisayba ma waxba ka dhina ma hal chapter baad ku soo koobtay laakiin mar walba aynu ku dhiiranaano inaan diyaarsano lesson plan-ka aad baan uga mahad celinayaa si guud maamulaha dugsiga ugu waxqabadka badana waxa kale oo isna aad uga mahad celinayaa facilitator-ka kale Cabdiraxmaan Aare waa classmate-kii aad baan u mahadsantihiin sidaad uga soo wada qayb gasheen wana inoo furay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.